xabada ayaa yeeray gaariga bankiga waxaa lagu dhiftay gaari dhinaca darawalka xabad ayaa ku dhacday darawalka kaliyihiisa wuxuu ku amray in uu diyaariyo bistoolad nuuceedu ay tahay Belgium sidoo kale qoran nuuciisu uu yahay sug horta sheekadan halkee ka soo bilaabatay dhamayso fiidiyowga halkan waxaad ku arki doontaa daawade walax aad la yaabi doonto wiligaada aanan hore u arag gaarigan aad u jeedo waa gaariga lacagta loogu qaado bangiyada labadan nin waa shaqaalihii maadaama gaariga ay saaran tahay lacag cadadkeedu badan yahay waa muhiim in lagu xiraa CC camera fiidiyowgan waxaan duubtay CC camerada ku xiran gaariga labadan nin dareenkooda haddu waa uu degan yahay balse hal mar waxa baabuurka ku soo hooban doono xabado sidii roobkii oo kale nasiib wanaagsa baabuurkan waa bilad proof dadka xabadaha ku soo ridaya waa niman tuuga ah waxay rabaan in ay ka taqalusaan labadan nin sidaasna ay ku qaataan lacagta loo wada bangiga sida aad arkayso labadan nin waxa ay kala xiran yihiin laba jaakad oo ah nuuca xabadaha aan ka soo gudbi karin nala dhamaysa fiidiyowga laagta iyo sheerta waxa ay nagu dhiirigelinayaan in aan soo badinno fiidiyowyada nuucan ah sida aad arkayso darawalka shaki ayaa galay waxa agtiisa soo mara gaari si xoog leh ku socdo darawalka haadka ayuu ku mashquulsan yahay saan aan raynin ayaa u muuqato xabada ayaa yeeray gaariga bankiga waxaa lagu dhiftay gaari dhinaca darawalka xabad ayaa ku dhacday nasiib wanaag baabuurka waa bilad proof darawalka kaliyihiisa wuxuu ku amray in uu diyaariyo bistoolad nuuceedu ay tahay Belgium sidoo kale qoran nuuciisu uu yahay 416 darawalka waxa uu muujinayaa dadaal dheeraad ah maadaama lagu qaraacayo ku dhawaad 3 gaari muhiimadda tuugada waa in uu gadoomaa gaariga lacagta bangiga ay saaran tahay nimankana ay ka taqalusaan si ay u qaataan lacagta iyo gaariga qaaliga ah kaaliyaha shaqadiisa waxa ay ahayd in uu daaqada qoorta ka taagto nimankana uu dabxir ku sameeyo laakiin midaas cidna jaanis uma siinin oo labada dhinac xabad ayaa loogu shubayaa jaaniska dhan ayaa loo diidan yahay nimankan darawalka haadka ayuu ku mashquulsan yahay waxay la naqatay tuugada in ay hereen sababtoo ah wax xabada ma dhacayaan wax gaariga lagu qaraacayo oo gaari kala ahna ma jiraan balse asiga dadaalkiisa ma joojinin maadaama ay hawshu tahay nin sigtay ma nabadgelin wadadii waa ka leexayay asigoo ka cabsi qabo in ay hor dhigaan gawaarida rajadiisii ahayd in ay tuugada naqatay ma ahayn mid dhab ah sababtoo ah gaari kale ayaa lagu dhiftay xabadana sidoodii ayay u dhacayaan xaaladdu ma fiicna maanta lama aha darawalka in ay lacagta si nabada bangiga ku tagayso sababtoo ah xaaladda aad ayay u cakiran tahay waxa u soo dhacay taleefan wuxuu u sheegay in ay soo socdaan balse xaaladda ay aad u cakiran tahay waxa ka qabta kaaliyaha si uu u mashquulinin taleefanka sababtoo ah rag iska cil iyo soor cunow meel isla magalaan taleefankii wuu iska dhiibay kaaliyaha hadda waxa uu fiirinayaa halka uu ka jiro GPS-ka bangiga waxa uu sheegay in uu bidix u leexdo maadaama maanta ay jiirooyin badan soo galeen darawalka waxa uu sheegay in xaaladan baabuur lagu sii widi karin waxa uuna yiri waa in aan isdifaacnaa wuxuu la baxay qorigiisa M4-ka ahaa daawada la wadaag fiidiyowgana saxaabtaada beejka falow dheh si aynan ku dhaafin qaybta kale